يا كل جاي في الفناجود كوادرول ركب صارتها نيكي إنه دمسترو بهالس وجرابة نش هروك دلي دتك يوم ما كاس وكلا يا عفير سنة ستة تيتيس قريس وسورك سد وكلا سفير 3,000 shilin Soomaali ah waa lacag aad u yar qiimo ahaan balse fadhigan sababtiisa ayay tahay maanta qiimahaas ayaana naf bini'aadana sababay geeridiisa waxaa la iska warsanayaa dilka Allah u naxariistay kirishbooy dhalinyaro ahaa marxuum Fuaad Nuur Xasan oo maalintiisii shaqada u taagnaa raadinta nolol maalmeedkiisa waxa uu dhintay muran yar oo ku saabsan iska diidida lacag aan xaq canshuur ahayn kadib isdhaafsiga hadallo koobanna kilida ayaa loogu dhuftay xabad AK47 ah dhacdadan Seebiyaano degmada Hodan ayay ka dhacday waa kan eedeysanay kormeer labaad Cali Ibraahim Qayliye oo doodiisu ay tahay in falkan aanu ahayn mid qorsheysna ama ula kac ah balse uu yahay shil ka dhashay isticmaalka hubka isla markaana xabadu fakatay dilku ma ahayn dil bareer aniga waxa la haynay shaqadiisu ku jiro oo jagboontigaas ka shaqeynayay wadan kala furayay amar waxa leegu sii wixii CC kamerada wax duubto ka soo sokayso inuu san gaari caasi ka reer karin alaabna aan la dhigi karin laguna ganacsan karin saraakiisha xakunta ha ahaatee qadartiya iska qoreeday aniga ma ahan inaan bareer aan u dilay xabad marshibiyad ku dhacdo aniga fakatay oo soo noqotay marxuumka ku dhacday intaas kadibna dadaal wixii aan sameey karo waa sameeyo wala tacaale isbitaalkii uga maharin qarash waa ku bixinay qadartiya marka meesha ku go'nay ku dhamaatay waxa ka sheekaysaa adiga iyo marxuumku waxay dhex maray marxuumkii aniga waxaan dhex maray soco oo albaabka xir oo wadada fur banay meeshan caasi laga ma ogol wixii kamerada ka soo sokay kamerada ka shaqo ku raro warkaaga ordo xaq ku raro iyo ma ku raraaya dadkaana qaadana intaas bis meeshuna meel saxmad oo zaa'id ay ahdo dadkeeda Seebiyan wala yaqaan meel iska jaamaydo xaalkeeda ilaa ogeey marxuumka xabad xagee uga dhacday meel ay uga dhacday warka waa la xabaan ninka xabad dhacdo qori xabad ka dhacdo arko ninka dhacay aniga waa la xaba kadib aad maxaa fashay kadib waxaan falay anigoo laxano iska taagan ninka darawalka warninka maxaa u dishay warninka maxaa u dishay waa soo dagay qorigiyaan amaanka xiray qorigii qabsaday darawalka qorigii la dhigay qorigii qabsaday amaankii xiray yar kale isgiriyaan waa ay warkaale heblow qorigan qabo kiyama sida qorigu u dhiibay ninkiina waxa ay hal qaado taliyeen u tagay waxa nin xabad ku dhacday meel ugu dhacdana ma aqaan isbitaal la geeyay dib male inta fariiso yiri meeshaan iska fariistay sidii macnaha ay ku dhacday kadibna ehlidii uu waayo isbitaalka xafiiska xeeraalinta waxay sheegaysaa in aad ninkaas marxuumka u dishay lacag dhan 3,000 shilin Soomaali ah maxaa ka jira arintaas gudoomiye waxba kama jiraan meesha lacag lagu ma qaado waa jagboontiga aan ka shaqeynay oo dawladda ay idmatay wax lacag lagu qaado mar milishibiye ma ahi canshuur lay ma dirsan baawur baaristaas iyo wadadaas inuu jagboontiga saxmadda ka yaraado waxaan shaqo kuma leeyahay wax gurmada ma u fidisay marxuumka waa u fidiyay maxaa qabatay waxaan iri in la qaado isbitaal Soomaali Suudaan la geeyo nin kirishbooy ah meesha ka taglayso kuma filno maxaa keenay in xabad ridid waxa keenay gudoomiye qoriga horta wax yar ka hor 20 daqiiqo intuu safal ka dhacay aan waxaan ka soo qaaday nin iga hay qoriga amaankiisu waa jilicsan yahay ana musbaar intaan ku qabtaan ku jikiyay marka maadaama qoriga amaankiisu uga jilicsanaa jiray waxaan sameeyay inaan xabad aan raacino qoriga aan garabkiisa ilaa xaalad emergency aan ka arkamay inaan garabkiisa haysto wax badan aan raacin maadaama nin aan u dhiibaanay marka qaladka waxaan ku lahayo aan ka soo qaato qorigii ma fiirin in xabad ku jirto in kale amaankiisana sinta ama suunka beelka dhexda aan ku dhuuqsado aan dhowr jeer waxaan ka soo ifuran waa haaf mar furan marna caadi u furan markaas wixii ka dambeeyay xabad inaan raaciyo waa ka daayay madaxda adiga ka sareeyay shaqada ma ku wargelisay in qorigan uu ciladeysan yahay ciladii ma kuma wargelin oo ciladu waxa waday wax ka si kaayeen adiga waxa xalisaa lagu leeyahay farsamayso musbaaran soo qaata marka meel yar oo laga jakeeyaa jirto kaga garaaca oo xogay oo ka yaajir kadibna waxaan go'aan ku gaaray inaan wax badan raacin ifaris darawalkii gaariga caasiga ee marxuumku kirishboogu ka ahaa ayaa la dhageystay iyo marag kale oo goobta ku sugnaa aniga iyo ka dhimanayo kirishboogiga waay waxa ka imaan dhinaca bakaare waxa ka imaan isjoo Seebiyan soo istaagnay isjoo Seebiyan kala wareeg waa dadkii oo bakaare meelaha agteeda ka degayo dad kala raacay yarka wax dili doono meesha lacag ka qaadanay isbaaqay nin yarka la u shaqeynay oo asiga baawurta inuu u tagay lacag uu soo qaaday yarkii iyo waxa isdagaaleen kirishboogi lacag kuma heena maanta ma shaqeynay hadda soo kacno dhahay markuu dhahay ninkan waa orde caliga soo waday oo wax dili doono caliga imaade in kirishboogi ku dhigay marka meesha ninka kirishboogi lacagta diido ninkan uu imaanayo waa labada kirishboogi loo qaalgishana waa la tuma lacagta jeebkiisu joogtana waa la qaadaha marka caliga markuu imaade ninkan kirishboogi ku dhigay ana soo degay waxa dhahay kirishboogi ka foqaadahay maanta aniga ma shaqeynay galin damba soo kacna dhaxday meesha waxa ku qaadato waxay rawaayeen niyoona ay wareeji عليك هذا كان دقيق وجرق وسيواي باوريك لا إمادة نيو كبريج الله إن كان مركز قاعدة عليك واحد بحاجة سري باورك ولا وريك كشبوري أنا باورك هذا صوف ولا كشبوري الباب بدنا مسوي هذا هاي
الباب ده ما سو حراي علي وسو ريت يركي بوجو ليف على حبد افسار او كلي هذا او لفت يركي بوجو كل حبد ما كان بلانا فتره سودا وسو دغي ماشي على سويرته على سويرتي بوجو دولك تا الله حق لي نيكو ادلي اي قبو markaas aan miirud bas ninka markaas asu biimay ilaa ifuday ina qabta sidii ku qabtay lama amniga nin oo boolis asi meesha joogay ay soo orday ninkan ka foqay lahaadee ina qori liftiisa ugu qabtay bas isaartay ninkan markuu foqay ninkan tirbuuriga dilay mana ka foqay dadweynaha meesha buuxina waxay dhaheen ninkan labadooda ka dhax baxay askari ninkan nima laga dilay darabalkii waayay tirbuuriga laga dilay ka dhax baxay askari markii saas la dhahay waa baxay waa laabtay dirboontiga oo tagay dirboontii taliyihii weynaa noo imaaday ciidankiisa taliyihii nig dayo dhamadeeha taliye nig qoriga qaada dhaadii nigaan nimo iga dilay taliyihii qoriga oo qaade nigti anoo saas isku dumay qoriga la wada kaamirada horteeda waxa dhahay nigkan qabo tirboori baawrkan oo dilay oo ila shaqeynay taliyihii saas kula wareegay baawrkii cunigi tirbuuriga ila shaqeynay sidii lagu soo waday Soomaaliya sargeeyay meesha mootir soo qaatay isbitaalka uu daba tagay isbitaalka markaa uu daba tagay qolada isbitaalka yarka dhaawac marka la keenay qarashal israa ma qarash keenay dhan waxa dhahay baawrka anaas kala dhahay tirbuuriga anoo ila shaqeynay ninka dilni wallahi ayaa dhahay lama amniga gacanta ku hayaan ku dheh ninka ka shaqeynay baawrka daminka dhahay باورك أنا أسكال على دمين نفسي دمين مال أنا ديها وادي ثم سوني سيدي وقابلين يركب في ملكي سنوع عيدين يركب في ملكي سوع مركب في ملكي سأي مادين ثم سوني شغلوا قالين حبيبتي سدي ساعة برملاس عنك إسبتالك سهل الغليل أو كل أنت وقتي واحدة عين ما قص عين هو يتون ساعة برا أو قلب نمو قلبت هو يتون ساعة برا ما أنت سلام مركز أنا مو شغالين waxaa soo baxna bil 500 500 soo baxna anaga saa usii socona sanac kaaraan asagtana kaaraan wax ka soo habeysane soo laabadkii baagi oo ninkan ugu qodobsada markii eedeysanaha cali markuu idin imaado muxuu idin weydiiyay cali ninkan aniga wax nima weydiin ninki oo asigu shaqeynaayo oo lacagta u soo dirsaday iyagii ribuuriga is afdaafeen ninka oo cali oo u shaqeynaayo waxa dabeecadiisa ninki asi wax u diido inuu baxo oo cali oo u tago على أصابه كريبورج لبضة كريبونتي سبيانو لوق مالك بدها الجينا كريبورج ولا الطمع برتي جلبة للدلا لعدت بحجاب كسر ولا قادنا باور بيئة سرية كريبورج هدي لجاوته أو لجاوته دوينه كريبورج أجمعن كاي الميان دوينه ويدقى يعني إذا سنها جوارد بيئة مو حكى قاعد جرم جوارد بيئة كل عشر قاعد جري هذه قف غالي لعق إني جبت غالي كي بيجت ماشي هذه سدح كل أو كل هذا هاي لكن عملية كل ما أنا سدح لو على أورامي سدح كل كدول ساقا حدول عيت تأدي الدنيا وحتى يعني كان شغلات كل اللي كشغل سكال هذه أما عاول عكوا ما يعني هذه سؤال أفرنته نعمليها ما تقال نعمليها محب الله أسوي شغلنا هذه الله محب الله محبه عيال كان بالبلي تنين قاعد يسيب يعني كعوة هذه كتبوني مصامرين وحوي ملا عيال ويرو أجري ماشي إما هذه تنين ماشي كعباي نكان وشغلنا مرك عبتوي معنا عبتوي نكان شغل قليل نكان شغل قليل نكان وشغلنا قرية سوحة كمان مركز أسير كبود قرية مع لا أسير وسوق بتاع أسير مش واحد لي إلى أمك ما يشتغل أوتنا نعيش صامر مكادي قف مرة ترى ويا ساس قف وحود له ما بحي مسؤول تجنادي محضر مع السنة بحود مع السنة ما قام بهذه وهو بيرى هالمرة إنه أخذ سودة قرية وجرب كشته عنا هالمرة سوق البريتة هالمرة سوبي مي مرة سيدا كوقبت وده فرق إنه كوي ما ذو شيء عندنا وحاش شيء إنه العقد إنه دي سنة ما يود ما ود فرق ما يعني أنا ليش جي حلي قات dadka hadda qaadmay leeyahay xilli hore aqaatay gooli xilliga algaab leeyahay gool bilaabay qaatay sharciga badana waa ilaaliyaan waa ma santahay adiga maadaama darawal tahay caasiga wadada ay ku gooneed Soomaa wada ay ma gooneen wiilka oo kirishbooygaada ahay meesha goobta kuma dhimin Soomaa maya xabada cid ku dhufatay adiga ma arkeen laakiin xabadii ayaad maqashay Soomaa aniga xabada ku dhuftay saasa u arkayay marxuumka geeriyooda Allah u naxariisto waxa dilay cali ilka la dhahayo ayaa dilay indhahayga ayaan ku arkay waxaan ahay nin kirishbooy baawuray ayaan ahay nin amleeyo markaas xaadirkaas uu laamiga taagnaa ayaan ahay ninkaas gacan ka gardaran
waayo ninkaas ayaa gacantiisa qabsatay maadaama baawureed aad ka mid tahay meeshana aad joogtay qaabka ay wax u dhaceen adiga ma arkaynay soo ma ma arkay ninka lacagta qaadaya oo aad sheegtay cali ma ahan waa nin kale soo ma aniga nin kale ma arkin cali oo wax weydiisanaya ayaan arkay maadaama tiray cali ayaa ninka xabadda ku dhuftay xabadda ka hor dood iyo muran ayaa meesha ka dhacay soo ma ها goobta ay wax ka dhaceen waa goob wadada ganacsato iyo rag kale oo badan oo la heli karo way jiraan soo ma aniga midaas intuu ku dambaabi kari laakiin aniga mid aan goob joog ka ahay oo indhahayga ku arkay ayaan ku sheegay baabuurka oo yarka kirishbooyga iska ahay sidii hadda aad og tahay wadada ayuu ku go'nay soo ma wadada kuma go'neen jidku waa furnaay marxuumka qaybta hoose jirkiisa xabadda uga dhacday Soomaha qaybta kor uga ma dhicin riday uga dhacday marxabadaas la riday inuu nafta dhaafiyo ma uusan rabin Soomaha ninka xabadda riday aniga ma ninka xabadda riday warso qaliina lagu sameeyay Soomaha isbitaalka maalin mar raacan ma qabat wax ma ka qabatay eedeysana shaqadaydan ka raacday dadka waa la kala dafay ninka baawar la saaray way maxkamada ma santa cadeymaha muuqaalka ah ee lagu helay been mashaaktada CCTV waxa ay u noqdeen kuwa waxgal u ah dacwadda maadaama lagu iftiimiyay cadeymo hadal dhaafsiisan oo soo koobay dhammaan falkan meeshani waa jagboyntiga Saybiano laakiin ma aha goobtii shaqada ay ka hayeen ciidanka oo amniga ay ka sugayeen baabuurtan ay ku baarayeen ma aha goobtan waa meel iska boosteejo ah baabuurta caasiyaasha laga rarto sidaan u jeedno aaway gaariga ay wateen marxuumka marka iyo halka uu dambiga ka dhici doono waxaa rabaa maxkamadda inaan fallaartan ku tusiyo gaarigan waa gaariga marxuumka ay wateen dambigana wuxuu ka dhici doonaa eedeysanaha halkaan uu ka imaanayaa asagoo uu la socdo ninka lacagta baada u qaadaya eedeysanaha ee nacamleeyaha ah waa kana wadada waa furantahay wax wado xiran ma eedeysani waa kuwana eedeysanaha in nacamleeyihiisa baada u aruurinaya waa kuwana mudane gudoomiye qoriga waa kana hadda uu toosistay gaarigii u socda marxuumka si toos ah u soo dhaweynay waa kana farta uu fiiqay waa kana kirishbooy uu leeyahay lacagtii uu diiday waa murmayaan gudoomiye marka eedeysanaha waa kana si toos ah wuxuu kala tuuraa marka marxuumka waa ka qoriga ku haya hadda waa murmaya gacmuhu la galaya shaatigu ka qabanaya intaan wadada waxa baabuurtan waxa saaran dadweyne shacab saaran mudane gudoomiye askari hubaysan oo qori wato oo nin shacab kala tuuraayo handadaayo ay indhooda marqaati uga yihiin mudane gudoomiye eedeysana cali marka waa kana wali wuxuu la murmaya kirishbooygi marxuumka dhintay wuu kala tuur waa kaasa mudane gudoomiye waa loo jeedaa qoriga ku qabtay mudane gudoomiye intaan wuxuu ugu qabanayo u handadaayo waxa mudane gudoomiye 3,000 shilin Soomaali ah iyo 10,000 shilin Soomaali ah 3,000 markuu ogolaaday marxuumka eedeysanaha wuu diiday wuxuu yiri 10,000 shilin Soomaali ah raba sida marqaatiga maxkamadda ka hor cadeen mudane gudoomiye sida zaxmadda la fiir mudane gudoomiye waa kana eedeysani qori ayuu ku handadaaya marxuumka halkaanu haddana ka soo jiidanaya kuleetiga asoo ku dhigan mudane gudoomiye intaan muxuu dinaa 10,000 shilin Soomaali ah oo waxba aan u tarin hadii la siiyo xataa maanta waa kana eedeysana mudane gudoomiye waa kaas waa murmayaan waxa ay ku murmayaan waa 3,000 shilin Soomaali ah niyo waa ku siirayaa bar iga tag in kaar qabay iyo marnaba 3,000 riyaal bacdama ay soo istaajisay 10,000 shilin Soomaali ayaan ka rabaa waa kaas uu kala tuuray inuu gacan u qaadaya u banay inuu kala tuuriya u banay waa ninka amnigiisa uu sugaa mudane gudoomiye wada xiran ma jirto wadada waa tara waa furantahay xitaa baabuurtii aan ku saadka ahayn caasigan kala mudane gudoomiye wuxuu meesha ugu qaadi waayay sababta saadkan iska maraanay kan muxuu ugu mashquuli waayay hadoo wada furay ma jirtay baado karaba waa kaas soo jiidanay fiir mudane gudoomiye wuu soo jiidanaya sabab wuxuu leeyahay waa diiday Soomaa baadeedi mudane gudoomiye meeshan fiiri shacabka joogo baabuurta waxa saaran dad shacab hooyooyada saaran ilma saaran mudane gudoomiye arxan darada gacan ku dhiglaan uu sameeyay mudane gudoomiye dadkaas hortooda ayuu ku dilayaa marxuumka oo fiirsi mudane gudoomiye waa kaasa uu soo jiitay gadaal oo geysanaya hal habo ku dhufanaya marka si cad ah loogu jeedo waa kaas qori ma lagu dhigaamay fiir mudane gudoomiye qoriga fiir hal mar oo ku taaya bash uu ku dhufanaa bacdama 20 sano oo booliis yahay fiiri lama gafayo hatta mudane gudoomiye waa kaas si fiican loo fiiri qoriga waa kana dhag dhash horo ka dilay dadkii oo dhan waa kaas kala yaacay fiir eedeysana si tartiibtiis qorigiisa soo wareegsaday waa kana fiir gadoon oo soo yirino yaa kula dhigan amaankiisa tartiibtiis u xirtay haddana mar labaad oo ku laabana goobta yaa ku dhigay fiir fanaan guudku darawalki dhakab
sababtoo ah ninkii inuu dhammaystiro baa halis ugu jiraaba nasiib wanaag marxuumkaasoo dhaawaca goobtaas laga qaaday gacan ku dhiigliina waxaa ku dhegan darawalkii waa kaas waxay iskula dhegan yihiin baabuurka caasiga dhabarkiisa iskula dhegan yihiin geeskiisa si uusan uga baxsan goobta una dhammaystirin ninkii uu dilay nasiib wanaag marka ninkaa dhaawiciisa isla gaarigaana lagu qaaday oo caasiga ah 8 saac oo habeenimo ayuu dhintay sida marqaatiyaasha ay noo sheegeen marxuumkii ku dhigan yahay waa kana handada gaari oo xabad ku dhici doonto ma jirto meel gudoomiye marshibeedka halkaan naga jira xabad ugu dhacaysa waa kana marxuumka hadda hor taagay qor lagu la dhigi doono ma jiro qoriga waa kana indhaal waa kaas bartaas ku dila dhash waa dilay hadda dadkan kala carraa tirsan meel gudoomiye dadka waa kana asagana ammaanka u xirtay inuu carro rabo meel gudoomiye laakiin waxa ku dhigi doono fiir wuxuu xaqiijinaa waa ka darawalkii degay waa ka darawalka ku dhigi doono bacdama marxuumkii uu dilay waa kaas darawalka ku dhigay baabuurkaanu kula dal qabanaa si uga baxsanin asagana uusan u dilin mudane gudoomiye waa kaas zoom aan soo saarnay eedaysanii gacan ku dhiilaa waa kaas mudane gudoomiye qori lagula dhagana ma jirto xabad fakatayna ma jirto si toos ah u dilay mudane gudoomiye si waadax maxkamaddu aragtaa askarta kale ka soo gaartay oo la qaban doonto eedaysana gacan ku dhiiglaha si waadaxa meeshaan u aragnaa wax la inkiri karo haba yaraatee mudane gudoomiye ma jirto dhaawac uu qaadayna ma jirto marxuumkii meeshaan oo ku dhiig baxaya mudane gudoomiye halka eedaysanaha uu isku dayay inuu ka baxsado goobta dembiga laakiin nasiib wanaag waxaa gacanta ku dhigay darawalkii waday gaarigaas darawalka gaarigaas waday wuxuu ahaa geesi sababtoo ah nin gacan ku dhiiglaha hortiisa wax ku dilay oo saaxiibkiis dilay ayuu naftiisa u huray kulana dhigay qorigii si uusan uga baxsan cadaaladda waa kaasaa waxaa lagu wareejiyey laamaha amniga marxuumka inta uusan dhiman dhaawiciisana waxaa la saaray gaarigaas oo ah isla gaarigii urarayay kaamiradan waxaa waaye hadda inta meeshaan waxaa ka arkaynay meesha lagu dilay marxuumka iyo gaariga caasiga meeshuu taagnaa askariga meesha laga soo wadaayo iyo cidda soo wadaysa kaamiradu inoo caddaynaysa waa mudane gudoomiye halkaani ma aha jackpointiga shaqada laga hayay weli khaarijul mawduuc ma ku jirno eedaysana waxaa caddaynaynaa in goobta shaqo uusan ka helin ay isbaaray u taalo oo dhac ka geysanayay meeshaan ma aha jackpointiga meesha wax lagu baaraay inta waay saadkan waay saadkan ma aha saadka wax lagu baaraay saadkan waay gudoomiye eedaysanaha halkaasoo fadhiya katakatiga meesha ku aruursanayo waa meesha mudane gudoomiye waxaa u imaanaya marka nacamleeye isaga uu shaqada u dirsaday oo lacagaha baadda uga soo aruurinayay caasiyaasha inta aan ka arkaynaa meeshaan asaga muxuu noo sheegay hadda maxkamadda kahor sheegay askarikan ayaa qoriga ka soo qaatay mana ogeen inay xabad raacsan tahay wax ka jira malaha asagaa garabka ugu jira qoriga mar alla markii nacamleeyaha u yimaado waa kana fiiri waa soo jiidiyey war soo bax ninaa lacag diiday ya kaale ninkaa lacagta nooga qaat 10 kun oo shilin Soomaaliya loo diiday waa kuwaanaan mudane gudoomiye kaale lacagta nooga qaat asagana waa kana asoo qabaarmoogo dhiga lahayn ayuu meesha galay si toos oo u toogtay marxuumka kaamirada markii maxay noo cadeynaysay in ninka nacamleeyaha ah ee soo waday muxuu noo sheegay hadda jidka jaam ku jiray jaam ayaan furay jaam ma jirin baabuurta caadi u kala socotaa meesha ma jaam mudane gudoomiye baabuurta caadi u kala socotaa jaam ma ahaynay meesha eedaysana baadu ka qaadanay baadi waxay ugu magac dareen katikati gudoomiye waa halkaan meesha eedaysana laga rabay inuu shaqada ka qabto kolbuardiyaas waa kolbuardiyaa ciidanka ay ku nisanaayeen shaqada meesha ka hayaan waa kuwana bajaajtana meeshaan ayaa lagu hubinayaa baabuurtii kalena oo inta lagu hubinayaa gudoomiye kormeero labaad booliis oo taliya ururka ah goobtan haddii uu meeshaan isbaaray u taala ka war saadkan kale waa nasiib darro waa booliis in ka badan 20 sano booliis ku jiray wuxuu sheegay inuu dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa hadda inuu booliis yahay mudane gudoomiye sheegay laakiin isbaariis soo ahaa maanta ay xaq soo baxay dadweynaha inta badan markaa wareysanay oo baarahan u wareystay waxay sheegeen eedaysanahan inuu ku haayay handadaad joogto ah jirdil baabuurkii diido lacag baadane inuu kirishbooga wadi jiray jackpointiga meeshaan ciidanka ku nastaan inuu geesto ku bahdilo jirdil u geesto jeebkiis wax alla wixii lacag ku jirtan uu ka baxsanay gudoomiye meeshaan eedaysanaha ma joogo meesha uu wax ku dilaayo dhinacaan inaga soo jirtaa waa saadkan dhinacaan inaga soo jirtaa marka meeshaan maxaa ka arkaynaa gudoomiye number 1 cadeynta koowaad oo kaamiradan u soo bandhigay waxaa waa eedaysanaha goobta shaqada inuusan falka ku geysanin oo shaqada halkaan ay ka socotay number 2 waxa u soo bandhigay waxay tahay askarta marka dilka uu dhacay inaysan qayb ka ahayn dilkan inaysan qayb ka ahayn isbaarada u taala eedaysanahan haddii baad la qaadayo asaga qaada asay gooni u tahay haddii dil la geysta asay gooni u tahay
maxay sameynayaan askarta mudane gudoomiye dilka markoo dhaco dadkii shacabka ee halkan joogay eedeysanaha meesha uu dil ku geystay nin ka mid ah soo ordaya askartan uu imaanaa wuxuu u sheegayaa in cali uu wax dilay ee kaaleegan qabta cali askartan haddana kuwaan kaloo u tagaa u sheegaa kulligood waa soo cararayaan gacan ku dhiiglaha sida loo qaban lahaa ay ku dadaalayaan maa kuwaana halkan uu ka soo baxaya ninka sheegaya marka waa kana ninka cararaayo waaye war ninka cali ahaa waxbuu dilay uu leeyahay waa kaa sii kufkufaayo dil nin arkay waaye war hebelow soo carar war kaalay ninkii hebelaa waxbuu dilay kuwaan si fiican wax u maqlay haddana wuu carara dhinacaas kaloo sii tagaa waa kaas war ninkii hebelaa waxbuu dilay kaalay soo carara markaana la wada cararayaa oo gacan ku dhiiglaha la soo wareegaya la soo qabanaa intaas waxaa ku dhegan darawalka gaariga waa kuwaana soo wada cararay askarti waa kuwaana shaqadii meeshaan ka socotay ayuu mashquuliyey xataa eedeysanaha mudane gudoomiye meeshaan fiiri hadda baabuurtan waa taagnaanayeen inta gacan ku dhiiglaha la soo wareegaya waa taagnaanaya mudane gudoomiye shaqada xataa waa xadhibnaanay meeshaasi wixii amni darro ka yimaada xitaa gaari qarax hadda soo gala eedeysanaha mas-uuliyadda qaadayo sababtoo ah mashquulkan asaa geli mudane gudoomiye kulli waa kuwaana askarti waxay soo wada aadeen waa kuwaana askarti inta waa joogaan laakiin attentionkii meeshaan lagu qaban lahaa amnigeeda lagu sugi lahaa lagu baari lahaa baabuurtan iyo mootooyinkan wixii qarax wada iyo wixii nabadda ka soo horjeedaba eedeysanaha ayaa mashquuliyey waa kana gacan ku dhigli waa la wadaa mudane gudoomiye waa la soo wareegeen waa kan marka horena waa sidii libaax camal ayuu dadku u leynaya u dilayay haddana isagoo oo waa u jeedaa sida loo wado karaama darrada ah ku dhacday nin boliis ah isbatoore buuxa ah 20 sano u soo shaqeynaya boliiska maanta in loo haayo dhiig uu daadiyey shacabkii uu ilaalinayay waa kaas mudane gudoomiye qoriga waa laga qaaday halkaasaa loo sii gudbinayaa oo lagula wareejin doonaa hay-adaha baarista marka kaamiradan maxaan usoo bandhignay mudane gudoomiye inaan ku caddeeno goobta shaqada inuusan eedeysanaha falka ka geysanin meesha laga soo qabtay oo dilka uu ku geystay intee waaye waa goob aan shaqadaan ahayn meeshaan ma aha mudane gudoomiye meesha uu baada ka qaadanaya inta ma aha mudane gudoomiye indhaha askartaan xataa ma arkaayo haddii askartaan fiiri laakiin ma aha meeshaan meesha isbaarada u taalay gacan ku dhiigla ee waa meesha meel leexada waaye oo baabuurta ay ka raranaya boosteejo ahaan u ahayd gudoomiye marka eedeysanaha maxaa noo caddaaday in meeshaan aysan ahayn meesha dilka uu ku geystay oo meel luuqa ee ahayd kaamiradeedina waa soo bandhignay katikatiga uu qaadanayay iyo wixii uu qaadanaya isagii goodin u tahay mudane gudoomiye waxaan diyaar u ahay maadaama aan caddayntiisi buuxay u soo bandhigay yaa dila marka ninkii amnigiisa ilaalin lahaa ayaa dila mudane gudoomiye kaamirooyinkan waxaan ku wareejin doonaa maxkamadda waxaana diyaar u nahay inaan kiiska soo gabagabeeno baraha galkan ayaa dhegaysiga kiiskan ku biiriyey natiijada baarista marxuumka yaa dilay marxuumka waxaa dilay KL Bol Ali sababta oo u dilay maxay ahayd khilaaf iyo muran ka dhashay lacag laga qaadayay oo baada oo laga rabay oo dhowr kun oo shilin Soomaali ah marxuumka meeqa xabada ku dhacday hal baalato xagee kaga dhacday dhinaca bidixda ka soo gashay mindhicirada ay jarjartay labada mindhicir ka weyn iyo ka yar bay jarjartay halkan laba oo kale ay ku qaraxday saasi wax u dhaxeen falka markuu geystay kadib eedeysanaha muxuu sameeyay wax gurmada ma fidin dhaawac wax gurmada ma fidin marxuumka goobta ma ku dhintay mise isbitaalka ku dhintay sida baadhistan ku ogaaday wuxuu ku dhintay isbitaalka laakiin maalinkan kare imsiinka aadayay goobta aan tagayay galka horta saldhigu soo maray saldhigana laga soo wareejiyay hodan buu ka soo bilowday markii kiiskuna lagu soo wareejiyay goobta aan tagay dadkii goobta ka ag dhawaa inkastoo ay diideen inaan cadaymo ka qoro oo yidhaahdeen sababa amni maadaama darawalnahay sababa amni waan u baqaynaa waxaa la yidhahdaa waxay sheegeen oo goobta ku ruuq baxay laakiin labada markhaati haddaan maxkamadda hor keennay siicad waxay ku sheegeen in isbitaalka dhaawac ahaan loo geeyey oo dhaawac lagu geeyey kadibna isbitaalka markii saalada la saaray qalliinka uu ku dhintay natiijada baaristaada maxaa kaaga soo baxay baaristeeda markaan si dhaba u baarnay kiiskan waxaa ka qornay markhaatiyada iyo dhinacyadii dacwadda markaan tagnay goobta dembigu ka dhacay aragnay muuqaalka ay duubtay kaamirada CCTV ee ku xidhnayd goobta waxaa noo soo baxday kow inuu dhacay fal dil bareer ah falkaasna uu geystay eedeysana KL Bol Deed Cali Ibraahim Qayliyow dilkaasna uu geystay si ku talagal ah oo bareer ah waayahay mudane baaristaada ma ku soo dartay ninka marxuumka weydiiyey lacagta waa ku soo daray waa raadiyey waa waayey
ninkaas askari diiwaan gashan ma ahayn oo dawladda u diiwaan gashan askari maroodi sax oo la yaqaan ma ahayn dadka suuqa dhex ororday askartu ay ninkii rabo wax u dirsado ahaa markii falku dhacayna hor u baxay wax dabagal oo sameysay abtuna waan ku hayay mana jooga suuqi gabadha ma santa ku xigeenka xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan la dhaxay Axmed Buule Kamey ayaa maxkamadda ka codsaday in dil toogasho lagu xukumo eedeysanaha maadaama uu dilkan si bareer ah u geystay tusaalana looga dhigo askarta kale eedeysane Cali Ibrahim Qayliye inuu gudoomiye Cali Ibrahim Qayliye waa kormeera labaad ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka tirsan kana shaqeeyo jagboyntiga booliiska amniga ee ka sugan ee Saybiano eedeysanaha wuxuu noo sheegay inuu meesha taliyo unu ka ahaa barta uu dilka ka geysanayo inuu taliyo unu ka ahaa sida ognahay marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa ilaaliyaha nafta iyo maalka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa badbaadiyaha bulshada ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa dadkii indhaha u ahaa bulshada Soomaaliyeed ku dadaali lahaa amnigooda ilaalin lahaa naftooda badbaadin lahaa laakiin mudane gudoomiye Cali Qayliye lidkeed ayuu ku yahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed shaqadii laga rabay shaqo aan ahayn ayuu qabsanayay mudane gudoomiye maxkamadda horteed waxaa laga cadeeyay eedeysanaha ha inkirsanaado oo hadiida doorabiyo laakiin maxkamadda horteeda waxaa laga cadeeyay oo markhaatiyaasha iyo baaraha ka cadeeyeen in eedeysanaha uu baad ka qaadanayay jagboyntiga Saybiano wuxuu u xil saartay nin camleeyo ah oo hadda aan ku raad joogno soo qabashadiisa ayuu u xil saartay eedeysanaha inuu baadaas u soo aruuriyo shakhsigaasi uu baadda u dirsaday mudane gudoomiye waxaa la sheegay in uu ahaa shakhsi nolosha ka dhacay koolista ah eedeysanahan ayaa soo gacan qabtay oo kaniiniga uu cunaayo taramadolka iyo bilibiliga eedeysanaha ayaa u gedi jiray isagoo u dirsaday inuu baad uga soo aruuriyo caasiyada laga raranayo jagboyntigaas mudane gudoomiye waa nasiib daro in sarkaal xigeen booliiska Soomaaliyeed ka tirsan oo hadda sugaaya darajada xidig la sugayo in ka badan 20 sano ka shaqeynaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo jagboynti amniga laga ilaalinayo oo baad ka aruursado waxa haddana nasiib daro mudane gudoomiye eedeysanaha faldambiyeedka marka uu geysanayo wuxuu u geystay si geesinimo leh oo libaaxnimo ah nin aan wax dulmi ah ku sameenin gacan u qaadin xadgudub aan sameenin ayuu si bareer ah dadka hortooda ugu toogtay laakiin maanta maxkamadda horteeda waa ka inkiriyay qoriga lagula dhagay xabada iga fakatay war sidii libaaxnimada ee shalay ah u dishay maanta maxkamadda waa warsheegay waa wax la yaabo waa mudane gudoomiye shalay si libaaxnimo ayuu dadka hortooda ugu toogtay oo hal xab ugu dhuftay meesha kilida laakiin maanta maxkamadda horteeda cadaaladda horteeda markii la taagan yahay waxaa la leeyahay xabadda waa iga fakatay marshabiyeeday ku dhacday dhul ayay ku dhacday ma sidii shalay libaaxa u ahayd maanta maxkamadda ku ahaatay nin ragaa ilaahay kaa dhigay ma jirto mudane gudoomiye cadaaladda inuu ka dhuunto rabaa laakiin kama dhuuman karo halkaas waxaa ku taalay camera CCTV luuq mugdiya eedeysanaha inuu ku dilay oo camera aan lahayn ayuu u maleynayay waxaa maxkamadda horteeda aan ka tusnay kamerada oo cad in eedeysanaha aysan jirin cid qori kula dhigtay in eedeysanaha aysan jirin xabad dhul ku dhacday waxaa laga arkayaa kamerada mudane gudoomiye hal mar ayuu qoriga sidaan u yahay eedeysanaha ku qabanaya marxuumka waa la dilaa wuu soo kala wareegaa goobta ka dhaqaaqaya ammaanku xiran haddana mar labaad oo u noqon weynaysaa inuu goobta ku laabto oo marxuumkii uu fiiriyo hadduusan dhiban uu dhammaystira ayuu rabay mudane gudoomiye kulaabadka uu ku laabtayna darawalka ayaa isku duubay eedeysanaha haddii xabadda ay ku dhacday marshabiyeed kaamiradan ka aragnay muxuu uga tagay meesha muxuu u qaadi waayay dhaawaca ma jirto marshabiyeed caloosha ayuu si toos ugu dhuftay halka xabo muxuu ugu dhuftay 10,000 shilin Soomaaliya maxaa ii siin weysay maxaa u diiday inaad 10,000 shilin Soomaaliya aad dhiibtid waa baad 10,000 maasaa ku leh maasaa u dhiibtay waa baad mudane gudoomiye eedeysanahaani uu ka doonayay marxuumkaasna maxaa maxkamadda hadda darawalka uu ka cadeeyay in duurkii bacda duur uu soo shaqo tagay nin bacda duur maanta soo shaqo tagay 12 saac barna aad dilowsid adiga intoo lacagta kala keena adiga muxuu ku shaqeeyaa midda kale
وامي أديك ماشي إن العك قادته إيه كتكت يا قات مع الجوكين وامي أمني إن كسبت الجوكين مشارع يا قاتا من القدومي مشارع يقاتا ولي بالعك في عنه قاتا وكفلا أسجل يرير كيسبه لكن وحواي يعني سنها أسجل بلود ولا هي نينك وأذيك سنة هنا بلود ولا هي وكنينيال أي وجداي بلي أي وجداي من القدومي maxaa maxkamadda horteeda hadda ka aragnay kaamirada in eedeysanaha loogu tagay meel aan ahayn goobtiisa shaqada oo maxaa la yiraahdaa dadweyne ay joogaan asagoo meesha joogo ayaa loogu tagay waxa uu tagay ninka nacamlayaha u ah oo baad u soo aruurinay wuu soo waday goobtii uu keenay war ninkan lacagta diiday dil uu diiday asna waxa maxkamadda lagu horcaday inuu dadka canaadi jiray eedeysanaha مدن قدومي مدن قرصوري على المحكمة شرفت له إذا سنهاني وحود دي لويل أنا يراه لباتن جده هذا سوء بحاي دد كيس يدل كيس إنه وقبتنا دياره أها مدن قدومي إذا سنها واكسو شيكي وحوها من بوليسة سركال حجينة هذا درجة سركال اللي مسوقاي تاليو إنه كاها جاك بوينتي أو سكيرة ودي لمرحومك لكن مرحومك محوها مدن قدومي مرحومك وحوها نين إسكام مسكينة دايرة شقيسناي شقده uu haayay ayaa fiiri ka tamid gudoomiye shaqada uu haayay maxay kirishboy ayuu gaari ka ahaa gacan ku dhiglaan qaranka Soomaaliyeed ayuu u shaqeynayay hubki dawladda watay dawladda ayaa mushaar siinaysay yaa awood badan mudane gudoomiye yaa labadooda hanteeysta mudane gudoomiye kana haysto cali ayaa haysto yoo lacag ka qaadanaya baada marka nin miskiina kirishboy ah maalinkaas u soo shaqo tagay inuu shilin Soomaali helo $100 bish qaadana لكن نكاس مسكين كمدن قدومي حتى مجورسن وحاس يعرورنا ملهن يا مستقبل كيس دافي مدن قدومي عرق لي يا دافي مدن قدومي وحاس يعرورة ولها ملها مدن قدومي هذا صباحي وحوش قيسنا يرير كيس والد كيس واليس أي وش قيسنا مدن قدومي شقدوا هاي محك شقة إسكفوا يا مدن قدومي وكريش بويني ما عليك يودن قرح ناس وحوش تاجي إنه شيء الصومالي كل ما بكون وماشي سكيل مدن قدومي هذا سنة بعضه كثير ربع طبعاً كل شيء الصومالي كانوا ليه نين ما تدن قرح ناس وتاجنا أو كسر رأي كاران كسر رأي إلا يسيبيانو أو طبعاً كل شيء الصومالي تركيز قادنا مش أنا وقادنا نولي وقادنا يا هذا سنة بعضه ربعنا وقاتوا من القدومي بعد مركو الدين المحسمي حبت أي وقف تبارك وندري سيادة المدن القدومي مدن قرص ولا محكمة شرفت له بعد ما كيس كانوا عديها واضح هي سيد قرح ذو كانوا عديها إن هذا سنة دلك وجستي بعد ما سي واضح وعديها إن هذا سنة الشقدي سوسن وتاجنين أو بابور وسبارين أو بيش بعد وكقال يعدها بعد ما هذا سنة السبرر ودلي بعد ما هذا سنة وتبرين هاي بدبادين كريم مرحوم كاس كل اللي حنكروا شقدي سقبسن كري لكن ودور بين إنه بعد ماشى سكا أروسي كتكتي وكقاته سبرر وتوكتي وعن محكمة شرفت لك عد صنايا تصارع أيها إذا سناهن وحي لو سمايو أسكرتك كلا شروطياشا سجل لم يتكايو تصارع ونقنا مدير قدومية وعبارها كان كشيء أو حاجة تيئة إن أسكر سجل لم يده كتكتي أروسان ونلجوا هذا محكمة باري قيبت بجود بوليس قبل كبنادر وقابل سنة باريستا كاسو أمرني إنه كيسس كاس باره هدي أجران هدي أجران أسكري لم يده علي أو كتكتي كقاعدة جبونتي أما بعد كقاعدة أجرو إنه بارس كل سمايا صار قبته محكمة وهر كانوا أنفرني وحاربنا أمرك إنه سنة تصالحت ونقضوا هدي أجران وا أنا عشان ما هنا سنة دم بيجو جيستي أيام هنا أو بعد نقاطي دل جيستي وحان محكمة شرفت لك عد سنة أمريكا وقت تصالحاتان شروالياش كلي أسكرته شعب كسومالي دباتين إذا سنة يقول تصالح خاتم محكمة شرفت له وعكوت سنة إن الدل توجشوا حكمته علي قيلي أنا قصاصتي مرحوم فؤاد نور حسن محكمة شرفت له ما سنته qareenka difaaca u ahaa eedeysanaha ayaa isla maxkamadda ka codsaday go'aan cadaalad ah inay ka soo saarto kiiskan magacaygu waa abukaati cabdulqaadir cusmaan waxaan qareen u ahay cali ibraahim qayliye oo maanta maxkamadda hor taagan eedda cali lagu soo eedeeyey waxay ku taariikhaysan tahay 26 bishii afraad 2026
oo maanta gacantaan ku hayno cali eedda markaa loo akhriyey saddexdii su-aal jawaabteeda laga rabay wuxuu ku jawaabay dood sharciyan ka qabaa doodii sharci cali waa sheegay mudanu guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh eedda maanta cali aan ka difaacayno oo na hor taallo waxaa ku qoran 434 iyo 484 xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa i hor taallo eedaas wax alla wixii meesha la keenay amba marqaati ha ahaado amba xafiiska xeer ilaalinta ha ahaato amba CC kaamirada la soo bandhiga ha ahaato wax cadeen u ah 434 iyo 484 oo maanta loo keenay lagu eedeynayo muwakkilkayga horta number 1 ma jirto waana sababayna mudanu guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh eedaas muwakkilkayga markii loo akhriyo doodaas ka sheegay waxaa ku xigtay qiraalkiisii la akhriyay qiraalka iyo doodii sharcigaas sheegay waa isku meel ay ka baxeen eedda waxaa ku qoran 434 marqaatiyaalka la keenay iyo xafiiska xeer ilaalinta iyo baaraha kiiska waxay caddeeyeen marxuumka dhintay inuu meesha ku dhimin kuna dhintay isbitaal lagu yiraaho Soomaali Suudaaniis goobta falkaas ka dhacayna waxaa la leeyahay Saybiano dila dhacalin dil markii la leeyahay 434 marxuumka waxay ahayd nafta markay ka baxaysay inuu yaalo Saybiano laga qaado asoomida laga ma qaadan waxa laga qaadaa sigoo dhaawaca waxa la geeyay isbitaal dilka marka meesha ka dhacay nafto kay ku baxday waa isbitaalkii haddana waxa la leeyahay wuxuu ku dhintay Saybiano isma qabataa waa marka labadaas nafteeda waxay rabtaa wuxuu ku dhintay isbitaal Soomaali Suudaaniis iyo wuxuu ku dhintay Saybiano in la iswaafajiyo waxay ahayd xafiiska xeer ilaalinta iyo baaraha kiiska inay isku xiraan labadaas qayb mudanu guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh ma difirsana muwakkilkayga inuu gacantiisa dhaawac ku geystay ninkaas marxuumka gadaal ka dhintay inuu dhaawacay ma inkirsana laakiin dilka oo la leeyahay waa kas oo wuxuu yiri doodan ka qaba doodiisina waa sharci sababtuna waxa waaye 434 waa dil bareer ah loo qasday goobtii ka dhacay kuna ruux baxay intaas cadeemo loo hayo maadaama marka la leeyahay meesha waxa ka dhacay dhaawacaasna waxa la geeyay isbitaal marxuumkana isbitaalka ku dhintay su'aala meesha taalo marka su'aasha meesha taalo waxa waaye ma isbitaalkii ka gaabiyay oo dhiig baxo u dhintay ma meeshaas marxuumku ku dhintay ma waxay dhimashada ma isbitaalka xaqiisa ka timid mise xabadii muwakkilkaygaas ku dhuftay ku dhacday oo u dhintay calaamatu su'aala saaran mudanu guddoomiye garsooryaal mana aha 434 xeerka habka ciqaabta 434 xeerka ciqaabta Soomaaliya ma ahan eedeeda iyo jawaabteeda iyo waxeedoo dhan maanta ma aheenin waxay ahayd 440 inuu yiraahdo xeer bilaalaha dhaawac culus ka dhaco kadibna 441 meeshana ay asaadayd laakiin maadaama noogu soo eedeynin eed 440 isku soo eedeynin 441 isku soo eedeynin 434 waxa laga rabaa inuu cadeynteeda la yimaado wuxuu keenay laba nin oo baawureedii kamid ah labada nin oo baawureeda kamid ah 484 oo marqaatiga ahayd ma waafaqsana waxayna ku waafaqsaneen maxaa yeelay anaga waxaan iraahaa dadka qayb waaye beeraley waa isku xir labada nin oo la keenay waa laba nin oo darawal ah baawureey ah saaxiib ah wax meesha ka dhacay iyo meeshii ay yihiin wax la warkooda loo qabanayo mid ma jiro maxaa yeelay ayaga isku xir ah
waxay sheegeen beesana la qaadanaya li beeso dad ayaga ka baxsan inay sheegaan ay ahayd mudanu gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh warkayga waxa ku soo koobaa 434 iyo 484 wax aan ka galnay oo ilaahay abuurtay ma jiro muwakkilkayga qiraal uma aha wuxuu u qirsan yahay muwakkilkayga u qirsan yahay 440 inuu meeshaas dhaawac ka dhacay waa qirsan yahay qiraal uu yahay 441 waa qirsan yahay wuxuu ku dhintay muwakkilka marxuumku wuxuu ku dhintay isbitaalka goobta kuma dhimin mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh labadaas qodob oo meeshaas ku qoran wax qiraal ah kana ma jirto wixii oo dhameystir ah waxa uu dhaafaa qareenka saaxiibkayga Cabdirasaaq waxaa jirta arrin muhiim ah oo ay ahayd sidoo kale xafiiska inuu soo keenin ku guuldareystay expert forensic report ma keenin oo waxaa jirta marka maadaama eedaysana uu sheegayo yiraahday marshabiyood xabadda intay ku dhacday soo noqotay waxayna toos ugu dhacday eedaysanaha waxaa jirta waxa loo yaqaano recogit waa marka xabaddu ay ku dhacdo shay adag ay ku dhacdo ayna soo baxdo toosna ay u aado qof kale ama jihadii ay bedesho marka xafiiska dooda eedaysanaha haddayn beeninaysa hadalkiisa waxay saarneed inay keenaan oo ay keenaan xafiiskay saarneed eedaysanaha waxaa la yidhi waxaad geysatay xabad kas bareeraana ninkaa u dishay ninkaana waxa uu sheegay in qoriga uu soo wareejinayay den xabaddiina ay fakatay ina ku dhacday 2 xaba ma ridin 3 xaba ma ridin madaxa kagama dhufanin waa qaybta hoose jirka maxaa xoojinaya doodeenna waxyaabaha xoojinaya doodeenna waxaa ka mid ah 2 xaba hadday qoriga ka dhici lahayd oo dhihi lahaa xabada baas oo ridi hadduu dhihi lahaa waxaasoo dhan waxay iftiiminaysaa oo ay diidan tahay qodobka 434 ayay meesha ka saaraysaa lala akhriyay 80 iyo ayadana 184 meeshay ka wada saaraysaa mana ahan goobtu goob ay ka dhici karaan astaamaheeda ayadoo maxkamaddu inahaasoo dhan ay jiraan goobtan ay suurtagal aysan ahayn maxkamadda waxaan يعني قنتي جبدي أنا أفتي مني إن سنها أو سن كذا واجنين دفاعي سين الحجين دفاعنا أنا كحجين أنت سنة محكمة كسوق جبدي وحنا رجينا إن شاء الله أنا عدالة دوافق سن إن محكمة كسر صارته أيضا سكوب بردقة سعديمها الهر كيني عديمها على اللي معنا نجا محكمة دوما سنته حاكو بحي waxaas oo xeelanta ay soo jeedisay waxa kama jiraan gudoomiye aniga wax aan bareer u dilay lama arko nin shaqadii loo diray dawladdu ay madsis sax u hayaan ahay kaamirada waxba la daba gadiyay sidaadana waxa waaye kaamirada inta ay hayso CC kaamirayaasha oo jigboontada ku yaalo inta ay hayso dhan waxa ka masuula unugta booliiska iyo unugta nabadgelyada jigboontada ku qoran haddii areas ama xindaabkaas ama bamba ka kacdo ama wax lagu dhibaateeyo oo meesha kaamira wax ka soo qaban karto anaga ka masuula maahan macnaheeda kaliya meesha baawrka lagu baaray in taagnayn anaga oo baawrka aan baaray meesha kaamirada shaqo ku milyan leenama ah xindaab kaamira soo qabayso dhan masuulka nasiir saraakiisha noo sheegan cali haday waxa sheegtay inaad marxuumka aad u fidisay intuusan dhimanin gurmad hadayna waxa la soo bandhigay muuqaal CCTV ah adigoo markaas falka geystay isla markaasna darawalka uu iska duubayo oo goobta lagu qabanayo iswaafaji labadaas hadal horta gudoomiye aniga haddaan talagal wax u dilay horta darawal ima qaban karin imana qabayn aniga aan intaan naxayaan rabay inaan ninka u gargaaro qofka aan qaadan rabo in meel uga dhacday si kala tawa wareer waa fahmi waayay darawal aan qaban karin nin kale oo hubaysan qabasho ka yeeleen laakiin waa markaan uu jeedo aniga wax u dilo laakiin wax kama iiga dhacday qaadan islaay waa ku wareer in askar u wacdo xataa weerar mar ninkan markuu qori goor dhigana waa iska fuji karadaan macnaha dhibaato kale aan dabacsan ama aan rabay inaan dhib sii geysto ama qasaaro intaas ka sii bato waa sii badan lahaa anoo waxa soo dhan ka taxadirayn marka aniga askar kale u yeerto gudoomiye ma fahmi haday waxa sheegtay in xabadda ay ka fakatay marshibiidka ay ku dhacday kadibna ay ku sii dhacday marxuumka intuusan dhimanin xabadda goobtana waxa imaaday ama maxkamadda imaaday laba marxaati waxay sheegeen in kas aad xabadda ugu dhufatay marxuumka isla markaasna afsaar ahayd kilidana ugu dhufatay gudoomiye meesha horta jaamkaad aragto waaye nin haddaan xabad ku dhufto ula jeedo aan ugu dhufaa dad badan ay leeyahay lahayd waa dhibaato kale oo hor leh ilaahay uu naga bixiyay maayo xabadaas horta xabad iga fakatay dii qof la dilay qof meeshaas lagu dilo waxa waa meel iska saxmadeeyay xabad dar ilaahay iga fakatay wala madan lahayn marxuumka ma aqaanin ninkan meesha la soo taajiyaan aqaanin oo kale darwalka lama reeka kale aan aqoon marka waka lacagaha
3,000 ee laga aruuriyo sida meesha laga sheegay maxdarka yaa qaado xageysay la geeyaa lacagtaas ayaga laga rabaa cid sheegta laga rabaa jagboontiga saraakiil uu leeyahay taliye uu leeyahay taliye xigeen uu leeyahay taliye jagboontiga uu leeyahay Cabdi Cali ugu sareeyo jagboontiga xukuumadda hoos yimaadaan jagboontigana looma sameyn in lacag lagu qaado ama isbaar lagu qaado ama canshuur yahay jagboonti amniga caasimada lagu hubinayo waay gudoomiye wax intaas ka baxsan oo dheeriye oo lagu sameeyay ama cid lacag laga qaadayo gaadiidkan aan hadda ku sheegay saraakiisha xakunta la dhaayay hal la buriyo wixii kaamirada ka soo sokoy iyo sakaran kaamirada ka shashay ha ka rataan dad weertaa oo jiro oo alaab dhul ku weerto oo kobaha kale iyo dharka iyo meel ay dhigso ayagana waa loo diiday waa la kiciyo waxa la ka tagana meesha waxa laga dhawaajiyay ereyga katikati gudoomiye katikati macnihiisa ninkii keenay ama qofkii hadda ka hadlaya yaqaan aniga katikatina ma aqaan weligeyna ma maqal lacago baad oo la qaado waa aqaan oo waa maqlo baad la qaado qof wax laga qaadi jiro waa maqlaa katikatina ma aqaan qof bili aadan oo muslim oo weligeyga aan u taagtamo wax seerin ma jirto saraakiila ila shaqeynayay asgaran leeyahay jagboontiga uu la joogto nabad loo buluus le dad kale oo meesha waa aragto suuqaad aragto waa yadaan uu baad qaadi jiray nin qarsoomaay qofka duu baad qaadi jiray nin baad qaadi jiray yahay sida la sheegay qof qarsoomaya ma aha dadkii la soo weydiin karaa hal la tago wuxuu ka shaqeyn jiray muxuu qaban jiray hal la weydiiyo muuqaalka daa'ima daawanaysa muuqaalka waa daawanaya qofka ku iimaanay ee aad israaciiseen intuu sanfalka dhicin ka hor muxuu ahaa qofkan israacayna maadaama jagboontiga ka shaqeeyno jagboontiga iyo inta xayndaabkiisa sidiisa warbixin lagu keenay qofka meesha wax lagu baaranaya jiingad iyo dhul la jijibiyo dawladdu jibinaysa jiro niyo jiingadii laga jibinay wixii kaamiradaas soo qabanayso dhan dadka degan oo dhan annaga yaani wax geyneen intaan soo qabanno wixii saysto kala wax haday ku iimaanay muxuu ku sheegay wallahi gudoomiyo meeshaas waa meel iska saxmad badan dhowr qof ay hal qof kaliya ma aano kaamirada meesha muuqaalka dul istaagay muuqaalka oo istaagayo hadda kaligiisa oo soo qabtay boqolaal noo timaad annagoo yaani wax cabasha iyo niyo moota traffic iga haystay qof aliif ugu dhuftay asgari military iyo wax ka soo cabasha noo yimaado kaas hadda ay markan ku soo qabsadeen ma aqaan inuu macno waay mar walba saliim aan jiray falka markaa geysatay kadib ma jirtaa inuu darawalka isku ka duubay oo ku qabtay darawalkan aniga ma qaban karin gudoomiye anuu isgariyana sideedo qof shacab aan ma qaban karin ana naxay xabadu markay dhacdo waxaad filanayso moogta waxa kama dhaxayso moogta aniga ninka waa ku naxay qoriga ameenkiisa waa xirisaa maxkamadda ka arkayso waa xakameeyo waxaan ka xakameeyay asiga inuu san gacanta u galin aniga marka hore waxay inaan ninkan qaado isku day inaan qaado oo u noqdo xabada dhacdo horta kama fahmin ninka xabad ku dhacdo markay dadka isla qayliyeen aan waxaan ninka u noqday waa aniga noqonayo markaan noqonayo waxaan rabaa inaan sii qabto asiga aan qaado waa mootaan saaro maxaa dhacay marka wala taala ma jirtaa in waxaan ninkaan ugu dhigay marka ninkaan qoriga ugu dhigay marka waa ka xakameeyay intaan ka xakameey karo qaybta dambe ugu dhigay amaankii aan xiray ana asgar u yeeray yar Cabdi leeyahay iga xagee laakiin qayladan iyo aan maqli karno saadka kale baa ku baaray kiya yimid qorigan ii qabanay sidaan qoriga ugu dhiibay xeeralaha wuxuu ku dooday mar laabashada aad laabanaysay in ujeedkaagu ahaa inaad dhameystirtid ma jirtaa arintaas xeer ilaaliyaha uu ku baalama aniga caloosheedina kuma jiro qof muwaadin oo aniga gacanteyda gaartana waxa waaye dhameystir uma socdo waxaan ka dilayna ma jiraan ma aqaan weligay maalintaas ay ugu horeysay wax hadda ka dilayna ma jiraan Cabdi Fataax Khiyaar warbaahinta qaranka Muqdisho.